kala fadhigii koowaad ee kulankiisa saddexaad oo baarlamaanka Koonfur Galbeed maanta ay ku yeesheen xaruntooda ee magaalada Baydhabo waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamaanka Koonfur Galbeed. Ajandaha kulanka ayaa waxa uu ahaa in laga dhageysto guddiga diyaarinta doorashada guddoonka baarlamaanka. Gudoomiyaha guddiga diyaarinta doorashada guddoonka Usmaan Bulle Umar ayaa ugu horreyn kulanka ka shaaciyay habraaca doorashada guddoonka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si waafaqsan qodobka afartanaad faqradiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay leeyihiin awood sharci dejin oo ay ka mid tahay doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad. sidaa daraaddeed guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankooda labaad oo ay yeesheen taariikhda 28 bishii saddexaad waxay soo saareen habraaca doorashada hoos ku xusan. musharaxiinta araajidooda waxay ku soo hagaajinayaan guddi hoosaadka diiwaangelinta musharaxiinta kaasoo madax ka yahay xildhibaan Joker. musharax u tartamaya guddoonka golaha wakiilada Koonfur Galbeed kana mid ah golaha wasiirada waa inuu guddiga qabanqaabada ku keenaa caddayn ku xusan is-ixtilaadiisa ama is-ixtilaadeeda markuu isdiiwaangelinayo. qarashaadka isdiiwaangelinta waxaa lagu shubayaa xisaab furan account numberka kaas dib laga soo sheegayaa uu guddigu ku leeyahay bangiga asna dib laga soo sheegayaa. guddiga waxa uu go'aan ku gaaray jadwalka doorashada hoos ku cad. taas waa tii hadda laga aqlay ugu horreyn waxaa weeyaan tan koowaad diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada waxay bilaabanaysaa berri oo axad ah 29-ka iyo 30-ka. isdiiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada 29 ilaa 30-ka bishii saddexaad 2020. hadal jeedinta musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada talaadada 31-ka bishii saddexaad 2020. doorashada iyo dhaarinta guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed idan hadduu aleedo 1 Abriil 2020. وبالله فقدت صيب الحبراء iyo jadwalka doorashada wixii kalena saxaafadii ayaa la wadaagaya wixii dheeriya xasaasa waxa laga codsanaya dhammaan xildhibaanada markan waqtiga muddada ay ilaaliyaan marka wixii wada shaqeynayna ay gacan naga siiyaan dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xasan Cabdinuur Aadan Xasan Albaro gudoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa soo xiray kulanka isagoona sheegay in la ilaaliyo waqtiyada kulamada ay jiraan. جاكر ما السطور برلواتي سغالكه او اهده بردم برلواتي سغالكه او وين راي سليته لبدا سبر برلمان كساي ما يسويله بلدي صدومي توت او ثلاثه قاعد مشرحيتي هي خطبة تكررها قبل هذه القصة ما أنت لا وصديق قبل ما أنت قبل أفراد أبي قوة هو بنفط إلى هذه القصة إلى هذه القصة ما أنت لا ما أنت قدومي دولار لما أخبار من الشقوة لما لا تاني كل نفسه شركة تاني kowda bisha Abriil ayaa lagu wadaa in ay qabsoonto doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed iyadoona ilaa iyo haatan ay jireen musharax isu soo taaga qabashada guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed. Ibraahim Maxamed Cabdi.